Maanta waxaan idiin haynaa sheeko yar oo ku saabsan laba saaxiib, Xasan iyo saaxiibkiis. Xasan waa ilmo deeqsi ah, mar walbana diyaar u ah inuu caawiyo. Maalin maalmaha ka mid ah, asagoo fadhiyo guriga hortiisa oo ay hooyadiisa u diyaarisay wax yar oo casariyo ah, islamarkaasna wuxuu Xasan gacanta ku haystay buskud. Wuxuu arkay saaxiibkiis oo ku soo socda, kadibna way isa salaameen. Saaxiibkiis wuu ag fadhiistay asagoon waxba wadan. Waa ay isfiiriyeen labadii saxiix, midba midka kale ma rabo in uu muujiyo dareenkiisa. Dhowr daqiiq ayaa saaxiibkiis la soo booday. Maanta caloosha ayaa ii xanuunayso, ilayn ma uu rabo in dareenkiisa muujiyo. Xasan waa uu dareemay in uu saaxiibkiisa in uusan rabin inuu la wadaago. Marka Xasan ayaa soo booday oo yidhi bal wax yar uu buskud ah isku day. Waa intaas oo ay xaloosha ku roonata, masaasa ayuu la soo booday saaxiibkii, intuu dhoola cadeeyey. Waxaa kaloo meesha dhegaysanayay ayeeyo Halimo, markaasay inuu timid. Waa taas qofka deeqsiga oo si fiican loo soo koriyey, ee ayay cod dheer ku tiri meeshaas ka wada, ayeeyo kaalay wax kale soo sheeg. Intay qosleen labadoodiiba. Waa kaas saaxiib wanaagsan ee carruuray iscaawiyo oo waalidkiina mar walba maqla. Sheekadiina maanta halkaas ayay noo sii joogay, ee kulan wacan oo kale, nabadeed.